كان wuxuu leeyahay xagee bay ku nool yihiin qoomka Yaajuuj wa Maajuuj Yaajuuj iyo Maajuuj ama siday Soomaalidu dhahdo yuug iyo Maayuug abada Soomaalida Yaajuuj iyo Maajuuj ma qaban karaan marka yuug iyo Maayuug bay waqriyaan maxaa xagee ku nool yihiin horta ma jiraan ha way jiraan quraanka kariimka sheegay laba meelood baa quraanku ku sheegay intaan garanay suuratul kahfi waa lagu sheegay Allah wuxuu tabaaraka wa taala qisadii Qarnayn markii laga waramay qowmkii uu tagay markuu mashriq aaday bari markuu xageeda aaday waxay ku yiraahdeen ya dal Qarnayn inna Yaajuuj wa Maajuuj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala baynana wa baynahum sadda ila akhir al-ayat nimankaasi waa niman dhulka fasaadiye kharash aan ku siinayna kala xid annaga iyaga codsi ay soo jeesadeen buu aayadda labaadna waa aayadda rabbiga tabaaraka wa taala suuratul anbiya soomaaheen hatta idha futihat yaajuuj wa maajuuj wa hum min kulli hadabin yansilun aakhir zamankay tilmaamaysa markii la furo oo la soo daayo meel kasto dhulka oo sareysana ay ka soo daataan yaani waxa laga hadlayaa waan salaam dhamaantiin maanta waxaan fiirinaynaa sheegashadan quraanka uu sheegtay uu leeyahay waxa jirta ummad la yiraahdo Juud wa Maajuuj la yiraahdo oo dhulka meel kamida ku nool oo bari hore dadka intay dhibeen nin la oran jiray Qarnayn intuu bira qaatay buurihii uu ka xiray halkaasna ay ku xiran yihiin aakhiru zamaankan ay buurahaas ka soo daadan doonaan sida ognahayba muslimiintu iyo diinta islaamku waxay aaminsan yihiin iyo ilaaha ay aaminsan yihiin cadaynta kaliya ay u hayaan waa quraanka waxay ku leeyihiin quraanku waa hadalka ilaahay hadalkiisii weeye sidaas darteed bay ku aamineen laakiin su'aasha meesha taala waxay tahay wixii quraanka ku qornaa ama hadalka ilaahay wax been ma ku jiri karaa haddii se wax been ah lagu arko waxaas ma la oran karaa waa hadal ilaahay taasan qiimeynaa maanta marka saa maqleyseen quraanka meel badan uu ku sheegay inay jiraan ummad la yiraahdo Yaajuuj wa Maajuuj maanta waxa jirta marka technology casri ah jirto oo adduunka oo dhan aad meel walba aad doonayso aad arki karayso tagi karayso aad fiirin karayso intay ku nool yihiin marka maanta meel kasta satellite baa saa ugu wareegay intaasoo kun oo satellite baa adduunka saa ugu wareega elbraqsi kardaba saas ugu wareegaan gurigii la gubo geedkii la jaro yaa meel kasta waa la socdaa marka aaway dadkan la sheegayo Juud wa Maajuuj leeyahay intay ku nool yihiin haddaan inta dhulkan tagno aan ka raadino aan ka weyno soo macnaheedu ma noqonayso in waxaan ay been tahay khuraafaad inay tahay inaysan waxba ka jirin ma noqonayso waa kana adduunkii maanta meel kasta taako ayaa loola socdaa meel kastaan u jeednaa adduunkii si walbay tahay meel kasta ay tahay magaalo kasta meeshii biyo leh meeshii geed leh meeshii guri laga gubo wax kasta maanta la socdaa marka sida adduunkii maadaama casrigaas uu maraayo ma oran karnaa marka quraanku waa hadal ilaahay hadiiba ilaahay wixii aan u jeednay ee adduunkan uu been ka sheegay uu leeyahay adduunkan yaa dad baa ku nool oo buura ku xiran yihiin yaa hadii uu leeyahay uu been noo sheegayo sideen wax kale ugu aamini karnaa waa maya lama aamini karaayo runtii aadaan uga xumahay in been inta leeg nolol sheego oo intaasoo macnaha sanan lagu soo koriyo oo waxaas lagu soo akhriyo runtii oo wax aad looga naxaway marka isticmaal app-kan waxa la yiraahdaa Google Earth ayaa la yiraahdaa meel kasto adduunka mid aad fiirin kartaa eegi kartaa baari kartaa yaa waxaad eegi kartaa magaalooyinka say u eeg yihiin
magaalo aad weligaa tegin baad eegi karaysaa ood fiirin karaysaa see way eg tahay siday tahay ya dadka ku nool say yihiin wax kastaad eegi karaysaa ya waa qalab cajiiba weeyaan oo wax walba aad ku eegi karayso magaalooyinka marka adinkana balbaadha ani waan baaray meel kastaan ka fiiriyey meel kastaan ka eegay runtii wax juud iyo wamaajuud la dhaho ama dad meel ku nool ma hayno marka adinka laftikiina bal eega dadkan meeshan ku nool ee xidhxidhan ee lasoo daynaya ee meesha ku cadiban xadiistu waxay tilmaamaysaa inay kolba isku dayaan inay kasoo gudbaan oo qodaan oo kolbay muxuu ka hoydaan oo haddana meeshiisa ku soo noqdo ku rafaadsan yihiin laakiin aakhirka way uun soo bixi doonaan oo waqtiga ilaahay qadaray baa la soo saari doonaa tafaasiisha waxaa bixisay xadiista nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh su-aashu waxay tahay xaggee joogaan marka soo ma intaasi waa macluumaad siyaadiya laakiin xaggee joogaan allahu aclam jawaabteedu waxa weeyaan allahu aclam dhulka ilaahay xaggee kaga noolyahay ma la yaqaan kolley sida qur-aanka laga fahmay suuratlkahfi dhanka bari bay xigaan bari bay jiraan laanna dulqarnayn meesha uu kula kulmayo waa markuu dhanka bari aaday wa baaxitiinta qaar ka midoo kutub qortay baa waxay leeyihiin yaajuuj iyo maajuujkan laga warramayo waaba jaynaba waa shiinaha nimankiisoo derbiga ma soo goosan waxay leeyihiin oo weliba ay ku darayaan caalamkan hadda awooddiisii dhanka shiinaha aaday shiinihiina adduunka ku soo fakaday tiradiisuna ayba wax walba ka badanto wax walba uu jiidhi karo halkaasayba geliyeenoo waxay yidhaahdeen meel kaloo ummad badani ku xariisanta lama haye adduunkii satellite baa soo wada sawirae adeer jayna wey nimanka halkaa rag baa dhigay laakiin tafsiirka noocaasi waa tafsiir baciid ah waa tafsiir fog waa tanziil iska la dhihi karayo muxuu ahaay waa uun ninunbaa uun isaga ijtihaaday masaladu marka waxay ku fiican tahay qur-aanku wuxuu sheegayna waa rumaynaynaa axaadiista nebigu intay ku dartay iyo tafaasiishana waa rumaynaynaa xaggay joogaan iyo wixii intaa gaadhsiisanna waa ka aamusayna waqtigeedaa la sugi laakiin ilaahay inama gaadhsiiyo hada wabillahi tawfiiq wasala allah wasalam wabaarak calaa nabiyina maxamed runtii waa ka xumahay wax hadda uu noo sheega habeeratee ma jirto wixii inay been tahay waa ujeedaan qur-aanka qaabka uu sheegaayo dad meel ku xidhxidhan oo buuro qodaayo oo waxay arkaan cunaayo oo waxay arkaan leefaya weeyaan marka waxay ku jawaabaan markay waayeen muslimiintii heer waxay bilaabeen inay yidhaahdaan china ah chinuhu dad waa dad bini aadan weeyaan dad wax cuna iyo dad buuro ku xidhan iyo dad buuro leefa iyo midna ma aha midda kale chinesku maanta dadka way u imaadaan chinesku maanta meel walbay tagaan africa soomaaliyay ka dhiseen xataa wadooyinka waaweyn soomaaliya china dhisay ya adduunka meel walbay tagaan oo wax ka dhisaan marka beenta in laga dhaadhacsiiyo waa laga fiican yahay in been lagu sheego aadaa looga fiican yahay runtii marka caqligaaga isticmaal wixii u weynaa ee lagu yidhi waa hadalka ilaahay caddeyn baa loo haayaa haddii uu khalad noqday maxaa waqtigaa iskaga khasaarinaysaa waqtigaa ha ku khasaarinin iska mataqaanaa iska ilow waxaan allah inuu been tahay waa ujeedaa aan iska sugno marka ilaah kale oo fiican oo sharaf leh oo si fiican noola hadla oo caddayn fiicanna tusa oo wax wanaagsan oo caqligala noola imaada intuu ka imaanaya aan iska sugno laakiin allah yaa ladinku wareerin walaal isqarxintan iyo mataqaanaa waxyaalahan foosha xun leh aan ka badbaadno marka run ahaantii sayniska ma hadla walaalayaal